أقاسمة أبدوا لا دورتا والكل أقاسمة أبدوا لا دورتا صحيح بجددا عرفت دوّدكتا كل أقاسمة أبدوا لا دورتا كل أقاسمة أبدوا لا دورتا أديك أنفرن صاحب أقي كرا وركيو سربيبا سيدكو أهذا أنا لو إلاشا سيدكو أهذا أنا لو إلاشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn ilaahay baa mahadle waxaan bilaabanaa xafladeena waxaan ku maamuusaynaa معالي المختار محمد فارح ودمانتين ده معالي نوض النقانية مناسبة إنه قبنا وحنو قبنا سدح ستيج الكواد وهذا السوتشين ده ستيج كلاباد قبنا حويه وعشاننا ستيج كاستحاض ضمبيا أبا المرينو مختار ركلو مش فردي وين شيءين وأنا عدني مكوجين أيان إن شاء الله مر لا بيصدح با أنا قدوسين دونا مناسبة kooxda Ilays Players oo Mukhtaar uu tababaroha waxay kaliya intii uu macalinka u ahaa waxa jira loodod kala duwan oo iyaguna maanta halkan la fadhiyo alxamdulillah Ilays waxa dhashay Ilays 1 Ilays 2 Ilays 3 Ilays 4 Ilays 5 ilaa hadda jirta marka taa lafteeduna waa sharaf iyo mahad celin aynu celino waxa jooga ciyaartooyadii Ilays 2 ciyaartooyadii Ilays 3 ciyaartooyadii Ilays 4 marka Ilays kuma koobneen kooxdii Mukhtaar u ahaa macalinka intii ka hooseyso dhan intiina way maanta fadhidaa السلام عليكم دمانتي waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanka bacdi waxaan halkan aad u salaamayaa Mukhtaar Maxamed Faarax oo horta nin ugu weyn in badan aan yaryareen soo gacan qabtay marka waalidnimada laga yimaado ninkan ugu soo xigay Mukhtaar Maxamed Faarax buu ahaa kubadda kaliya noogu muhiim macallin iskuulada xitaa naga daba tagi jiray oo oran jiray inaan joogniin kala soo hubin jiray xafladan horta runtii isaga aan qabanay oo soo qaban qaabanay ana ku hadlay afkii guddiga qaban qaabada xafladda waxaan halkan aad ugu hambalyeynaya inamadeenii qurbaha joogay oo iyaguna aan ka maqnaan xafladan ama aan ka gacan barnayn oo iyaguna qaybtooda lahaa inamada kale marka jooga labaduba waxa aad ugu maamuusayaan labadeena qaybood kala maqaba Mukhtaar Maxamed Faarax macalinkeena xafladan intaas ay daaran tahay waxaan oran lahaa kale Mukhtaar ku soo dhaw macna ardaydaad iyo waaweynaatum bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waan salaamayaa dhalinyarta halkan iskugu timid xafladani waa xaflad maxay ahayd maamuuskeeda iyo milkaheeda wadata waxaynu maxay ahayd ku marti qaadnay macalinkeennii oo waxa soo generation soo saaray oo maxay ahayd ciyaartooyo badan oo halkan fadhiya oo qaar heer kubadda ay ka gaareen iyo niman badan oo kubadda ka fadhiistay dhamaan intaas soo dhan waxa iska leh maxay ahayd horta mahadda Ilaahay isku keenay macalinkana maxay ahayd aad baan ugu soo dhaweynayaa noqon maysa tani tii koobaad in saas ku nimaadno insha Allah xaflada ka badan oo ka ballaaran aynu insha Allah isku iman doonaa waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhamaan dhalinyartii ka qayb qaadatay inay xafladani maxay ahayd qarsoonto Maarig Cabdiraxmaan gudoomiyaha groupka horta nin baan halkan aad uga salaamayaa aad inoogu qaaliya inaynu caaw halkaas ku nimaadno ninkii sababay waa Maxamed Xasan Axmed Xasaayo ninkaas wuxuu isku soo ururiyay dhamaan asxaabtii xaafadda oo dhan Khalid Yaasin Cali Gule Xaaji Ismaaciil dhamaan darre kala baaday Gule Xaaji Ismaaciil in badan baynu oran jirnay maxay ahayd waa cid walba oran jirtay bariyahan lama arag lama xidhiidho Gule Xaaji Ismaaciil imanka waa ninka ugu maxay ahayd update-ka badan leh ee mar walba taana waxa ka dambeeyay maxay ahayd Casaayo inuu jafaay mar walba soo hadlo in hablaheeni hibaayaan iyo maxay ahayd iyo Ifraax Bashiir
oo iyaguna maxay ahaydey xafladan maxay ahaydey iyo dhammaan dhalinyarta xaafadda ay isku xidhkeeda ka wada shaqeeyeen marka maxay ahaydey dee xafladan waa caways iswaraysi isxaal waraysi is arag isxusuusin iyo dee wada sheekaysi marka maxay ahaydeen la ismarteen qof kasta wuxuu hayo si deynaya bani wa salaamaya alxamdulilaahi rabbil caalamiin bishu maanta waa 4 bishii koobaad 2021 alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa soo halkaas dhalinyar fadhida ilaahi caafimaadku ku keensimay inagoo wada caafimaad qabna alxamdulilaahi rabbil caalamiin taasa ilaahay marka koobaad wax loogu mahadnaqaa marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dhalinyartii soo abaabushay xafladda noocani caaw halkan dhowleero joogno magaalada Hargeysa inay dhacdo waxa mahadda koobaad leh sida Muuse ba sheegay ninkaan saaxiibkanay idinkana macalinka idiha Mukhtaar Maxamed Faarax oo runtii aan ka marakacayo juhdiga iyo dadaalka uu soo galiyay nimanka maanta quruxda badan ee halkan fadhiya dhinaca kubadda iyo dhinaca akhlaaqda iyo dhinaca etikiskaba yaani uu ahaa nin tacab badan galiyay maantana midhaheedii oo uu dheefayo soona saaray rag badan oo dhinaca kubaddana magac iyo subcad maanta magaalada Hargeysa ku dhexleeya Soomaaliland qaybta businesska qaybta waxbarashada intaaba horumar ka keenay taasna waxa weeyaan waxa maxadda koobaad kule marka Ilaahay laga yimaado subxaanahu wa ta'ala Mukhtaar Maxamed Faarax sidoo kale dhalinyarta iyaguna juhdigii la geliyay iyaguna Allahumma salli ala Muhammad iyaguna ka soo baxay ee dadaalay ee maanta madasha la joogay quruxda badan soo abaabulay gudaha joogan maanta halkan inta nala joogta ahaato ama inta dibadda joogtay qurba jooga ahaato alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadlay caawa inagoo caafimaad qabna halka soo keenay waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddigii sida fiican uga shaqeysay madashan quruxda badan ee caawa fadhino mahadnaq ka bacdi laba arrin uma taabanay laba qodob mid waa mahadnaqa iyo gubaabin si fiican baynu mahadnaq ka bacdi kulli dhalinyarta kale dhalinyarteenu waxay kaga wanaagsan tahay iskarabstaaga iyo madasha lagu kulmayo iyo wada jooga inta la nool yahay wax lagu yahayun kulli qofku haduu dhinto duco buu nagu leeyahay laakiin inta la nool yahay hadii aan la xusin oo qof walba title ku taagan yahay aan la gaarsiin cid kale ma xusiso tan aad u dhiirigelinaya waxa weeyaan qofkeena wanaagsan inaynu haysano oo aynu dhiirigelino oo wixii inta kulli wax kale uma qaban karno motivation kaasuna aan siin karno aan siino halkan waxaan aad ugu mahadnaqayaa macalin abaal weyn u hayo Mustafa ahaan maanta heerkan taaganahayna waxaan u haystaa meeshan ka hadlayna waan ka sheegaa in macalinkaas ka dambeeyo sabab badan awgood dhalinyaro badan oo aan soo wada kacnay waqtigeygii waxaan u haystaa inuu yahay macalinka wax badan iga hor istaagay macallimiinta waqtigan jooga waxyaabaha inagu tababaraan waxa kamid ah waa kubadda cagta iyo qaababka loo ciyaaro gurigeyga tagnaa macalinka macallimiinta kale wuxuu kaga duwanaa aabahay si aanu iga warhayn ayuu nooga warhayay dhamaantayo waxaan leeyahay macallin Ilaahay ka taasiyo intii aad nagashatay bilaadan baa noo kulay ma gudi karno bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay mahad horta inta isku keenay inta ka bacdi waxaan u mahadnaqaynaa horta mahad goorsiina ilaahay mahad laba naxariisanayna macalinkeena Mukhtaar inta xafladan ugu tala galnay maamuuska iyo sharafta leh inta ka bacdi qoladii soo qaban qaabisay muusiyo khamle iyo xirtida hawshoodeenayna aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ku darsan lahaa dhiirigelinta macalinka Mukhtaar Tansiino kale inuu ku sii wadno dhalinyarada in kale wax la qabatayna aan ku darsano ya kafta kale kuma banyaano salaan kadib marka koobaad waxaan si ballaaran u salaamayaa macalinka kooxda macalinka Ilyas Players Mukhtaar Maxamed Faarax oo aan leeyahay macallin soo dhawow doorta shakhsiyan anaguna si uma yeelanaad macallin in noqoto bariga kubadda ciyaarta laakiin haddana kooxdaada iyo adigaba kaamaan deeqranaysa fogeyno
وهذا اللي السعودي لكن كل واحد يظن مدي سرتق اللي ويدنا مع النقطة وايو واحد بدنا ما انتهي نمضى كابرتين مركان أركو ده واحد مغرانسا سودين السنيون صومر تهد معنا كا مركان مع اللي هي كبركيو أنت مركان معنا كلمة دو مختار محمد فارح واحد ترتاء إنما هو شاب أبولي وحفرت القروح بدل اللي أبولي وموسى محمد طاهر يو مصطفى خملة ولور اللي متورتي مصطفى خملة لها ومانتنا عيارتوين يجنا إلى هاي وحنا لها هي أنت كلا إنما ذا كلا عيان لي يعقوب كمدي هاي يقول الشبر كمدي عبد الحكيم دي هاي تقدميها جروب كالشمح أحمد حسن عرب خيار لمان تذكرن أجسمها عادل إنما ضربنا هبل ما تريخرو ومع روحنا قصة جوري قاطو بينا خطرة مكت جوري بندرو وعيال كوارع مرجع وحنا لها دماتين بقى بعد السلامية معنا كنا وحنا لها مع المختار محمد فارح markay maanta noqoto daanu koox baan ahayd ka soo horjeedo chief Lawrence maanta ma aan tiimkaaga si aan anagu isku xidhnay isku xidhin sababtu waxa weeye basica ay wax baa ka gaadsi ala shan xaq hoose tii waxa u saamaxday maanta inamada inay wali isku xidhnaadaan aan ummadda kale kaga doorto taan ku soo biro marka macaan waxaan leeyahay intaasna Ilaahay kugu daro liiska xasanaadka Ilaahay kugu daro insha Allah إلهي أدقنا نقرأ تعب كذا إلهي أخذه بتقول استه وايو هذا الواحد يرينك مصطفى خملة يروح يري أنت اللي نوري هم بعد حسترا إما هدوم معنا كلنتو ننوح ما ترى سموك والله ننوح بتري لكن أنت نوش هي واحد سرطان وبوح على السرا وحلا السرا أنا قيمة له لكن ما أنت كلمتها وحونا ضغطها وحونا ضفات هذا ما قد حصلوا مرة لكن واحد ولا تريك تمجرته نار كاب ده كرتي تنين ما قلت لكن أوف أنت ونوري هاي ومعلم كينو توجو أم بين مدني كره توجان أنت أصلا احترق كرتهم تعاوني دقيقة معلم قناة حنا إلى هاي بركة يتيم قناة حنا ليه تني أستاذ سكوح لنتيم على ما كان كده ما أنت مقعد سكوح لن إنما حاجة صو شعب كله راي يقول سكوح لن وافرت تنترو إلا مقول سكوح لين وإلي قاعدك ها سبريم وتربى لورنتي أنت هذا بدن ما لف عم بهايستان إلا مقول سكوح لين نو إلى سنة وضدي بحيسا وحنا تعالى إن الوقت أنت نبضين ولا غلطان وسجارة سكور حيسان مختار محمد فارح waxaan garanayaa markan macalinka ahaa anigu waxaan haladkii ku xigay muxtaar kooxdiisa yani ku xigay kabtankii ayaan ahaa kooxna coach baan ahaa marka hadda role model buu ahaa isagaan ku dayan jiray shirka wuxuu ku leeyahay soo dhageysan jiray anaga iyaga uga sheekeyn jiray markay kala soo dhex gala isagaan u yeeri jiray marka aad baan salaamay muxtaar maxamed faarax waxa kale aad u salaamaya wax weeyaan wax walba wax kama soo hadho gubaabada iyo qabanqaabada dadku hadda isku tagaana wala kala baxayo dad baa ilaahay dirayo xilqaamo oo hawl kasta yani beeska ka soo bilaabo muuse iyo groupku hogaaminay si guud baan salaamay iyagana waxa kale salaamay halkan aan ka faa'iideysanay macalinkaygii Khalid Yaasin Ali anagu laba macallin baan lahayn isku hay bedelay idinku mid baad nasiib yeelateen iyo Farxaan Nuur Boomino isagoo ma garanaysaa macalinkayga labada macallin baan salaamaya haddaan halka yar saxo anigu Aamin Cabdi Yuusuf aad buu yaraa runta fiican wadab xaafadda soo baxay laakiin waxaan xaqiijinayaa anu coach kuwan kooxda wahaayeen yani xirta watay ama coach kaanu wahaa badankooda qurbay ku maqayin aamin maadaama aan arkayno soo kacayo xaafadda uu rajada soo kacayo yahay waan dhiiri geliyaa laakiin macalinkiisa rasmiga ah xusayo wuxuu ahaa Mustafa Maxamed Faarax oo muxtaar ka yaraa anigu aamin dhiiri geliyo baan waxaan arko maadaama waajibkiisa saaray xaafaddiina ka soo kacayo inaan dhiiri geliyo oo yani waajibkiisa saarnaa guto إلهي بام هذا هل كان وحنا كسلام يا كوح هيدي عن كبتك وهاي ليس بلايرس 2 لما أنتوا أنتي فيديو قاعد سجارو وحنا كلام سلام يا متشرف تكسر قريب قشري لما سجود آد بريد السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما توح نوقف في السنة يا chance كذا هذا نوقف في السنة يا chance كذا محن كرا ذاي أرتا ما أنت ركبنا بعد مقارنة سيسوق قبل قابلي ما أنت هير كان ما أنت تاجنا يسوق قارسية oo kamid yahay maxamed cumar ciga maxaan ku raadayay kubadda markaan bilaabayna ninkii soo tuuray shafka saar igu yiri inuu fadhiyo caawa Cabdinaasir madaxay waxaan aad iyo aad u salaamayaa ragay aan subax lahayn waqtiga badan soo wada qaadanay oo maanta dalka dibadda badankooda u badan yihiin ragaasna cidii fiidiyoga soo gaadhay aad baan idin salaamayaa saaxiib waxaan kaloo salaamayaa ragii iga waaweynaa xaafadda ما نقطة تحل فتنة تيجو رسيتي وجنت بسي وحنا نقطة أنت وضع عن إذا كان بقى هذا أنا قلنا تشيل كنا قطع بيا أنا ما
maxaan ku dhahday aan uga faa'iideyn doonaa anaguna waxaad noo noqoteen leaderin aan ka dambeeyay macallin Mukhtaar Maxamed Faarax xaggan waxaan ka salaamayaa macallinkayga aad ku qaaliga Mustafa Maxamed Faarax macallin Mustafa Maxamed Faarax wuxuu soo saaray maanta ragga Hargeysa leaderada u ah maxaan ku dhahday haddii kubadda noqoto iyo haddii kaleba wuxuu soo saaray maanta Hargeysa yaryarka ugu fiican maxaan ku dhahday koox walbana hogaamiya ayuu soo saaray xagganna aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa maxaan ku dhahday gudoomiyaha gruubka Shamax iyo kabtanka ciidanka asliibta Mustafa Khamlo waxa ka sameyno fadhiya oo nin maxaan ku dhahday in badan aan ku day jiray kubadiisa oo aan daawan jiray oo garoon u ciyaarayaan tagi jiray xaggan aad baan ka salaamayaa xaggan waxaan ka salaamayaa inamada qurba joogta oo maxaan ku dhahday ugu horeeya Khalid Jafaaye Duule Xaaj Ismaaciil Ceero way badan yihiin ma soo koobi karo maxaan ku dhahday iyo labada hablood ee ugu qaaliga Hibaayaan iyo Ifraax Bashiir taday Ilaahay baan dilay hadduu tabaat Mukhtaar Jirinoota Ilaahay ka soko waxaan xasuustaa maalin aan kubad ka soo qaaday cabshukurkayga aan karhay oo garoonka Lincoln laga qaaday iyo ka bacdi inaga kooxdii naga qaaday dalka taban magaraasa fadliga macalinkaas ka lahaa laakiin macalinka xafadu qoomeynay inaguna deem garaasa madax wixii garoonka ku soo ciyaaray ma guursadaan inuu guri ku dadaalo marka hore macalinka inuu dhaqaajinaday ilaa xafladii waxaan waa iska magaraasa xafladii waxaan waa dambeed dhawey macalinka inuu magaraasa dhaqaajino ayaa muhiim moogtay rag badan meesha fadhiyo oo xaaju kamid yahay rag macalinka team kurdina ay iskuulada ay meesha fadhiyaan iyaga hadalka iga banaanaa moogtay ya marka waxaan ku soo gunaanadayaa inkastoo ay muwaarig ma dhawadii la kaftamo igu yiri macallin ma ahayn malaha 4.5 lagu qaybina malaha caalid balowdii wixii macallimaha yaday anu Maxamed Cumar iyo deeyo madaxayo dhamaan qaar badan imika seeray heer gobolka ciyaaraba macallin baan u ahaa ya laakiin se waxa 4.5 lagu qaybay wixii hagaayra caalida qaateys ya inta xadarada wala gareeyay ma filaya wayan waxaan kooxdii baabiyaha kooxdii muwaarig agan ka soo kici jirtay ninkii kooxdiisa baabiyaha aanu ya marka waxa ku soo gabagabeenaya isjacaylka iyo wanaagan inaga dhex muuqda insha Allah inay maanta tan quraatan noqoto mid migraansa si socota oodana waxa la yiraahdaa u kala dhowda loo kala goraaye insha Allah munaasabada ku xigtay insha Allah macalinka meedkiisa inuu joognaan insha Allah aynu ku hamiinna baniyo salaamay dhamaantiin hadalka dheereen maayo oo xogaa dadkii ugu horeeyay hadalka ba dhameeyay laakiin 3 point oo bartan igu note karaysan 3 point oo note karaysan ma doonayay inaan ka gaarsiiyo horta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan martida ka soo qayb gashay intaanu teammates ka hayn intaanu asxaabta naayimka iyo intii muxuu ahaa kubadda naga dambeysay ee xaafadaba dhamaantiin waan wada mahadnaqayaa waxa kale oo mahadnaqayaa cid kasto hawshan qabanqaabadeeda lahayd oo asxaabta qurbuhuna ku jiraan muxuu ahaa asxaabta wadanka joogaanay dhamaantood cid kasto isku timiday si hawshan u socotana waan mahadnaqayaa waxa kale oo mahadnaqayaa muxuu ahaa cidda maamuuska leh oo ah Mukhtaar Maxamed Faarax macalinkeena oo yaani muxuu ahaa qadarintiisa iyo ixtiraamkiisa iyo muxuu ahaa tusaalihiisa iyo dhammaan wuxuu yahayba waxaanu maamuusanaana ay tahay muxuu ahaa wax kasto wanaaga oo ina gashaday inaynu ilaa hadda u hayno wax kasto wanaag oo ina gashaday inaynaan yaani iloowin imika waqtigan kulman I think inay 15 sano kadib tahay 15 sano ka hor baa I think markaynu aanaleeyda isku yimaanayno oo waxa kubadda ku ciyaarin imika 15 sano kadib dhamaantiin kullu half cimri weyn wada joognaa dhamaantiin waxaan rajaynayaa insha Allah another 15 years markan 45 naay aynu kulano oo ilaa yaani muxuu isku keenayo muxuu waxaan ku soo gabagabeynayaa muxuu muhiimadda wada jirku leeyahay aan doonayo inaan sheego horta farqudi foolma dhaqdo waxay kamid ahaayeen xikmadihii macalinka aan ka dhaxlay muxuu marka hadeynaan isku iman hadeynaan casaayo somehow oo mahadnaqayo hadaan initiative kan ama ikhtiraacaan keeneen oo soo ururiyeen dad badan waxay isweydiinayaan gudoomiyaha uu yahay muxuu yahay oo gudoomiyaha sama waqtigiisu dhamaanayaba oo 5 days oo gudoomiyaha la xisho hadhay laakiin somehow muxuu meel asxaabtu isku timiday
oo yani hindisa fiican oo casaan keenaha ونحن بقدومي كاي مركب واحد كوضعون أنت أنا عصاية سمو أنا دي بسكان حسوسين أما دي بقعرين سمع ساعتين هنا ونقلب في الأقصنين مركب يعني هندي سفي عم بعصاية ومنطقية المهمة العائلة هاي محوها إن لو ذي الشيران سمو إنك عاوز كل من ذي مختار ماموسنا أنت أنا قلب غني نودن دي أدمى إنه هاي individuals وقت كده قف استين كليجي توقف ماموسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا ما صرفت كسر بقى شيء حفلة عاد كوقالجا عاد بيتكم هذا العليا دبوا هو حاسو ملا وناجا ما الله هينه عاو واحد نقول ده ملا عاو هذا قبل العسل ملا من ويلها ملا عاوي وحويان سعاد وقالجا أو قيمة بدن أو شرف بدن أي حستان ساي شرفتان الله هذي شرفه وحنا في ليا أنتي وأنا صلها ملا وناج بتقبضي إن كبدن إيدي كعقبتي وحويان لما كان تعال لاقي واحد نقول ده ماستر دي بي اتش دي جمرايا waxa weeye iyagoo buug qalin iyo beesal sita ayaan waqti soo wada qaadanay imkana xaweyni man baabadii halka waxa fadhiyay nimaniga waaweynba oo marna magsawrka la kala malaana ugu daayarba marka waxaan sheegaya waxa weeyaan qof kastaba kulli midhaha uu magaranaysa uu beerto ayuu muqoostaa waxa weeyaan haddaan idhaahdo qofaan waxa weeyaan ayaan ugu mahadnaqayaa ma soo koobi kariya maantina waxa weeyaan caawa kadisba ay gaga dhigteen kadiskuna farxad way wanaagsan tahay horta waxaan doonayaa mar labaad inaan mahadnaqo waxa weeyaan dhalinyaradii soo qabanqaabisay xafladan qaaliga oo waqti hore isugu kaaya dambeysay kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba dadkan waxa weeyaan qofka yaqaana in wax la taray waa qofka wanaagsan wanaaga deeqa qofka laakiin xun hadii la wanaajiyo iyo hadii la soo dhaweeyo midnaba ma kala garanayo marka idinku waxa weeyaan ismaan lahayn de waa ismaan lahayn waxba qabatay waxa weeyaan wax ka badan ayaan qaban lahaa haddana leeyahay waxba qabatay inta ay ka badan ma qaban lahaa anigu laakiin isma haysto inaan wax qabtay laakiin waxa weeyaan maanta wajida quruxda badan nimanka sharafta badan leh waxa weeyaan meel kastaan galo waxa weeyaan wasaarad kastaan galo waxaan u tagay in nimadeeda kamid ah meel kastaan galo waan ugu tagayaa meel kastaan aqoon-yahanaa jira waxa weeyaan niman fara badan oo waxa weeyaan madax oo waxa weeyaan dalka iyo kubadda cagta markaan garano tago waan ugu tagaa waxa weeyaan waqtiyada kamid ah oo waxa weeyaan dawladda yaryara ayaa jirtay imka ereygii ugu qiimaha badnaa yani marka xasuusto Mustafa Cabdiraxmaan uu ku dhawaajiyay oo ahaa macallimiintu wax sheegaan kubadda waxa weeyaan de mala macallimiinta kubadda wax sheegaan mala waxa la kulmay rag waaweyn anigu de qof yar baan wax sheegay qofka yar marka loo sheegayna waxa loo baahan xaq hoose laga soo bilaabo waxa weeye maskaxdiisa iyo jirkiisa labaduba ay u noqdaan laba garanaysa dhammaan waxa weeye marsalta ka soo qayb gashay aad baan u salaamayaa koox ciyaartoydii soo maray ilas players waxa weeye dalkii dibadda inta joogtaba aad baan ugu mahadnaqayaa isku xidhnaashuuna siduu sheegay uu wanaagsan yahay waxa weeyaan farkali waxa weeye fool ma dhaqdo aniga idinka la'aantiin waxa ma qabteen waxa weeye niman aad maskax wanaagsan oo ma sha Allah ay ku jiraan guuleed iyo Cabdixakiin iyo waxa weeye niman culus oo meelaha aan ka talaabi kari waayo salaaniya haba jiraan ku talaabay kaliya maan talaabin wax qabad kaana kaliya maan qaban anigu waxa way rag bay la shaqeynayay wixii la qabanayay kubadda marka baleenka dheer rag la tashanayay baa jiray rag wixii la qabanayay baa jiray qofkuna kaliya wax ma qaban karo nimka Cabdixakiin mala waxa moodaan qalbigeyga ogaay caaw xafladii waxaan idhi waniyo de albaabkii guurka meel adiga taagnaayay caaw mala waa laga leexinayaa mala soo meel fahmi marka waxaan idhi caawa marka mala muxuu ahayn shamaxiyo bisa iyo Mustafa rag badan guuxiya jireeyo war waxaan leeyahay albaabku waan banaynayaa bal soo diyaar garo waan leeyahay kullu waxa leeyahay hada nibadii mood oran niirayna kama wada tagin waxa weeyaan kulli waana leeyahay cod kirsiyan mananaya waana leeyahay qomadan yahay waxa weeyaan nabad maro dalka iyo dibadda soo maraya meesha la fadhiya soo midaan garan marka waxa leedahay waad ku maasantiin waqtiga qaaliga horteen sida qaaliga uga soo qayb gasheen inta waa ku maasantiin waxaan leeyahay saayid sharafteen Allah كل أقاسمها أبدو
ولا دورتا كل أقاسمة أبدي ولا دورتا